xuska kowda Disembar oo la aastay maalinta cudurka HIV aydiska ilaahay naguma keenay ayaa maanta laga wacyigeliyay bulshada ku dhaqan guud ahaan magaalada Gabiley iyadoo munaasabadaasina ay goobjoog ka ahayeen wacyigelinta kowda Disembar oo maalinta xuska aydiska salaadiin qaaliya wax kala iyo dhaqaatiir kala duwan isla markaasna lagu qabtay fagaaraha qariyada magaalada Gabiley oo goobjoog ka ahayeen dhaqaatiir aqoon cudurka HIV aydiska oo ka wacyigelinayay bulshadaasi ayaa gooreynba waxa hadalkoodan ka jeediyay Dr. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Dr. Cabdiraxmaan Geyle iyo waliba Dr. Deeqa Umar Xaaji Siciid iyo Siciid Maxamed Bilo oo ka socday hay'adda Progress oo isla markaasina waxay sheegeen khataraha uu leeyahay cudurkan HIV aydiska maxay tahay adigu isbaad deetana markaad ogaato inaad isbaaday oo caafimaad qabto waxaad ilaalin kartaa naftaadii baad ilaalin kartaa waa maalin adduunku uu u suntay inay noqoto maalinta la xuso wacyiga wacyigelinta cudurka HIV xanuunka HIV aydiska waxa kaloo ka mas'uul yahay inuu waxyaalaha cudurka laga hortago haday tahay adeeg caafimaad Sultan Ibrahim Jaamac Samatar Chief Aqil Dayb Abdi Ciil iyo waliba hawaya gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlaya iyaguna ka hadlay khatarta ay leedahay cudurka HIV aydiska iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay riwaayad wacyigelin ah bulshada ka wacyigelinaysa khatarta uu leeyahay cudurkaasi gabagabadiina halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay xubno ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Gabiley.